بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين داود يال صاحب يال ميل كستا أو آد نقدا ونيسان عاوة برنامج كوحا مرتي قوة قبدي كدلتي مقالة بيدبا كسو بربارتي مقالة مقدشو قاران قبل كبنادر فانكادي وكوهانا قاضي هلكا إيو مقالة بوساسو مقع لغا مسكين ماهين تاسي واتما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واكو السلامي حذيف. هاي فايلنته. إذا فايلا ريكانا مرلما هذا كين كنجا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين دواك لها؟ واتاي ما شاء الله. إذا العدو آذن عاو برنامجك يا مرتي جوجوت هاي برنامجك أن اسمه ويدينا إنه فنكاجي هالكاد كبلاودي هالكاد كوسا بربارتي هوشا صردن ميل نقدك إذا لي أن وحاجة بسي سكور لياب لها أياجي بسي كاس أو وح دمر كيني هبلهني جبدهني لجواي أو إن رجعوا أن أما صاحبه حاجياشوا إن أقران كالجعلك جعلك أي أقبان درتت أن محاتا سببت أقول لي رتم حيتها وحسن هبله كليسن كل يرني بعض هاتسنتا حذيفي هو سؤال مهمة. hortaniyo how qofka libinta uu leeyahay hadaan la siinin xaqiraada lagu sheegayo wataas aadiyad aabaha iyo hooyada way siman yihiin ma sha Allah aadiyad qof walbana xaqiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala de baba hore ugu qirayba ma fahant iyaga inay isku qiraana wax diiday ma jirto marka de aabayaasha libinta ay leeyihiin in la siiyo waxaan ugu dhiiraday maadaama ay macnihii ka dumar ahaanna mas'uulkeena ay hayaan awlaadeennana aabahooda ay yihiin maxaa tiri marka xalkeenu xidigaha maraya haye xamdi alle ubaxinagu xirmay cafiitankayna dhexmara xalbanka siinaya xaydaami sameeyo gudoon حغدو حبيبي اخدي يا حمار حنون يرين وكتبته اسكيا وشرفته حيوب شو حقيقي ذي كل مرة حبيبي حديني يا حمار حنون يرين وكتبته اسكيا وشرفته حيوب شو حقيقي ذي كل مرة واتاي إذا هستان وهس آدي عجيب أو دردارن أو أن maxay ku imaada heestan sababta ka dambaysa maxay ahayd yaa sameeyay ujeedada aad kala hadlayso maxay ahayd waad mahadsantahay xudayfi heestan ujeedada ay ku timid horta miraheeda waxaa iskale waan cabdi duse iyo macaal xamada laba heestan iyo mid kale waxaa jirta iyadana aabaha ubadka ah labadaba waxaa sameeyay cabdi duse aad iyo aad laxan iyo ereyadaba isaga ayaa iskale waxayna ku timi aniga ayaa ka dalbaday maasha Allah abwaanka iyo fanaanka way wada hadlaan hadal kadib ayay sidii ku timid heesta dabcan sheeko dheer ayaa abwaanka uga sheekaysay abwaanka sheeko dheer ayaa uga sheekaysay sheekadaasi wax yar ma nooga soo dusi kartaa maadaama abwaan dusi uu sameeyey dee annagana noo soo dusi aad iyo aad maya waxay ku timid for example hadda waa dareemi kartaa qurbaha qaas ahaan weliba waxaa maanta batay walaal reer familadii in ay kala fogaadeen aad iyo aad oo maanta ay u badan tahay hooyo keligeed inay ilmihii haysato marka yaanka kadib abwaanka markaan isdhaafsanayaan waxaan iri abwaan bal ka waran maanta waxaan dhacaya qurbihii marka la yimid على الأقل هيسو هدي حتى ما أردت لبداس قف أي كلا فوقادان اسكو سو علين كرتو
in aan aad macnihii ha aad samayso maasha allah saasuu iigu sameeyey haddii xisaabta marka kana dhex laysku mara dhaco haddana tii ha kalena waan ka dalbaday waxaan idhi abwaanow bal tii kaloo haddana laysku xaalmarin lahaa ha oo macnihii oo qofka dumarka haddana dhiileed bal haddii aan xataa qalad aan sameeyo ka raali noqo ahaan ilan waxa waaye isfahan iyo israaligarayn unbaa adduunka lagu nool yahay aad iyo aad adiga maasha allah ilaahay maskaxdiisa saliimka ah ha u daayo sidii bay labadii heesood waxba kalamay dambeen aad iyo aad saasuu heestan kale waxaad leedahay aabbaha ubadkeygiyow ifkan adiku jeclo haye ku dar indhaha nurkoodiyo wadan kugu dogsadaa aabbaha ubadkaygiyo adduunka ragga ku nool cadilisu ururiyo ayan qoralay horkeno adaa iga muuqala abbaha ubadkaygiyo ifkaanada ku jeclo indhaha nuurkoodiyo adaan kugu dogsadaa aabbaha ubadkaygiyo ifkaanada ku jeclo indhaha nuurkoodiyo adaan kugu dogsadaa aabbaha ubadkaygiyo adduunka ragga ku nool cadilisu ururiyo ayan qoralay warkino adaa iga muuqala aabbaha ubadkaygiyo waa hagacka aabbaha ubadkeygiyo idilay marka laga soo tago qadra daahir cige oo lagu tilmaamo inay tahay hooyadii mucaashiqiinta ama kalgacaylka ama jacaylka oo runtii heesaheeda inta badani marka laga sheekeynayo qisooyin iyada ku dhacay ay ahaayeen dhanka kale marka la fiiriyo cumar dhuule cali allah u naxariiste isaguna inta badan heesaha hoygiisa ama qisooyin asiga ku dhaceen lamid yahay mi isu haysataa adigu inaa hadda qadradii xilligan inaad tahay waad mahadsan tahay xudayfi laakiin marka realityga laga hadlo qadro aniga iyo in kaleba uma malaynayo in aan soo dhowin karna xataa ilaahay cimri dheer ha siiyo laakiin waxaa waaye waxaan wadnaa jidkeedii saan rajaynayo aad iyo aad dabcan heesaheediin waa kuwii aad markii horeba aad kusoo ifbaxdo aad u jeclay aad iyo aad boobayaasha lambar wanaan ahaa aniga hadda xoogaa waxaa waaye waa laga gaagaabsaday mooge haye maxaa tiri dadka ururiyo hee dadka ururiyo isu tegay dhammaan ogan karaa mu'oyaya isaga ayaa way ogaa warama aramnaydu inay awday taqaan waa hagaag idilay marka si aad loo fiiriyo waxaad moodaa dumarkeennii aad ayay ugu adag tahay inay mahad celiyaan inay kalgacaylkooda ay soo bandhigtaan jacaylkuna waxaad moodaa marka hore intii la isxodxodanayo oo la israbo keliyale in lasoo bandhigo oo gabadhu marka ama wiilku ha ahaato laakiin markii aqalka la wada yimaado waxaad moodaa in kalgacaylkii meesha uu ka baxayba taa maxaa uga jawaabaysaa wallaahi niyahow waa arrin aad iyo aad u liidata waxaan uga jawaabi lahaa
marka ugu horeyso horta waxaa la yidhi aqal aan aaskiisa ama udubkiisa aan si fiican loo aasin horta waxaa waaye ma hagaago dhisidiisa ma fahanta waxaan dhihi lahaa jacaylka marka ugu horeeya meesha aad ka bilowdeen low samaxti ku dhameeya jacaylka xataa hadduu haaf yahay waxaan aaminsanahay in gadaal uu ka beermaayo oo gadaal laga korin karo isagoo weliba faktii hore kii aad iska hesheen kasii macaan marka waxaan leeyahay jacayl aad iyo aad uu kadabkiisa u go'ay bahasha saaha laga dhaafaan dhihi lahaa idilay marka si loo fiiriyo waxaa tahay gabar aad u cod macaan waddankan Sweden ayaa joogtaa fanka muddo aad kusoo jirtay kabana kusoo bilowday ilaa haatan oo aad mis leedahay fanku meel fiican ayaa haatan ka joogtaa mise hiigsi kale ayaa sii leedahay xudayfi waa su'aal muhiim ah weli ismalihi meel fiican aad ka joogtaa laakiin insha Allah bidmillahi karim waxaan rajaynayaa anigoon aan ka gaarin hadda waxa maama la noqday loogu sii jiro meeshaan idil ahaan ilama qurux badna insha Allah waa rajaynayaa in aan heerkii aan macnii fanaaniintii maanta aniga aan ku daysanayay ay ka gaarin anigoo ka gaarin ay ka gaareen anigoon ka gaarin ayaan waxaan jeclaa inaan ka hadlo waa tahay marka qurbo la joogo idilay oo ay tahay inaa hooyo noqoto inaa ubadkii iyo hawshii gurigii iyo noloshii kale inaa la daala dhacdo iyo fankii la isku dhex wado wax sahlan miya maya wax sahlan maaha igu soo roor maaha waa aad bay u adagtahay haye in fanaan lagu noqdo qurbaha barashadoodii adiga naftirkaaga waxaa waaye waddan baa timid waxaad u baahan tahay in aad wax ka kororsato shaqooyin ay kugu xiriiraan fanka Soomaaliyeed siraaxa markaan runta kuu sheego magac moogiyo wax maanta loogu jiro taaba yaraatay ma jirto qofkii aqli leh waxaa la yidhi magacii masiibo mar bay baxaan noocuu doonaba ha kuugu baxo fanka ama ha dheeraado ama ha yaraado yani waxaa ila qurux badan in macnihii futureka kale laga hormariyo fanka ka idil ahaan waa tahay idilay intii aad soo joogtay ama fankaa kusoo jirtay ama wax kaa walwal kugu abuuro ama kaa naxiyo weli ma la kulantay maya wax ku niyad jabiyasa oo erayo xun ama aadan ilaawin aad soo xasuusato ma jirtaa maya lama soo kulmin siraaxa markaa runta aan kuu sheego ani fanka allaha u naxariisto dad macnihii fanka iiga horreeyey qaarna way nool yihiin qaarna way dhinteen ayaan kula soo kulmay yani siraax de markaana anaa ugu da'yaraa marka aan fiiriyo inta markaas aan ka wada tirsanayn fan ahaan yani wax igu soo dhoweeyo oo macnihii qalbi wanaagsan oo adeer iyo habar yar ay dhaha moogiye wax macnihii qalbi jab wax qalbi jab oo aad kala kulanta ma lahayn la koox aad u wanaagsan walaalaha isdoortaaba la baxnayba isjecel ayaan wada ahayn waa taa kooxdaas halkee ka dhisnayd marka kooxda walaalaha isdoorta halkee ka dhisnayd idilay waa tahay idilay marka si loo fiiriyo waxaa tiri heestan ma aan dib ugu laabano aad iyo aad ayay aniga saameyn gaara igu yeelatay xidigaha maraya xamdi alle ubax inagu xirmay cafiitankayna dhexmara xalbanka siinaya aydaami sameeyo gudoon halkeenoo xidigaha maraya xamdi alle ubax inagu xirmay cafiitankayna dhexmara xalbanka siinaya aydaami sameeyo gudoon waa tahay guud ahaan barnaamijkeenii intaas ayaan kusoo gabagabeynaya caawa waxaa barnaamijka martiga ugu ahayd fanaanada caanka ah ee idil cadow aadan waan ka xumahay in qadka ama farsamadu ay noo suurtagelin weyso in barnaamijkeena uu sii socdo hase yeeshee habeen dambe ama habeenada xiga ayay idil marti barnaamijkeena ugu ahaan doontaa iyadoo si live ah heeso iyo muusig kala duwan halkaa noogu qaadi doonto
iyo idinka oo aad u mahadsan waana ka cudur daaranaynaa in barnaamijka oo noo sii socon waaye waa saaxiibkan cabdiraxmaan xudeyfe oo idila tan iyo kula daba sidaas iyo nabad